magacan kale waa suumad cusub oo dib aan ka qaadanay laakiin waxa uu watay magac isaga ka weyn oo runtii in badan gobolka laga yaqaano laakiin anagu waanu yarnaa waan soo kornaa waxaan oran karnaa magacaanu qaadanay wuxuu ahaa Gateway Private School buu ahaa runtii gobolka wuxuu ka shaqeynayay intuu magaca watay Gateway muddo ilaa 3 sano ah waxaana ka soo baxay difacado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen luqadda Ingiriiska oo markasta uu hormuud u ahaa ustaadkeena qaaliga inagu ah Ustaad Ali King iyo qaybta xisaabaadka oo runtii gobolka baan oran karnaa u ahayd iftiin u soo baxay dan waxaanu qaadanay magacan cusub ee Global anagoo difacadana ay tahay difacadeedii koowaad kuna soo kordhinay koorsooyin kale oo ka duwan kuwii hore aan bixin jirnay xafladan maanta difacada koowaad waxay ardaydu ka kooban yihiin 100 arday 100 ka arday oo isugu jira department English ah oo ka kooban 20 arday department health ah oo baranaya auxiliary nursing-ka oo waxa ka kooban 30 arday iyo department xisaabta ah oo ayagana 50 arday ah 100 ka arday ee maanta u dhamaatay koorsooyinkeedu loogu talagalay ayaynu maanta xafladooda halkan u fadhinaa aad iyo aad baan ayagana ugu hambalyeynaya haddaan ka soo gudbo warbixinta kooban waxaan rabaa in aad ugu mahad celiyo ka soo qaybgalayaasha xafladda kuwa gadaashayda fadhiya iyo kuwa hortayda fadhiya labadaba waxaan idin leeyahay annagoo idin kala qaadqaadeen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa noogu weyntihiin sida quruxda badan wanaagsan ee waqtigiinii aad noogu soo horteen aadna dareensiiseen inaanu leenahay garab na dareensiiseen inaad nagala qaybsanaysaan farxaddayada maanta waxaan idin leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo waana idin haynaa abaalkaas haddaan u imaado qodobkayga saddexaad anoo soo koobaya maadaama ay xafladdu waxaa waqtigii uu soo gabagaboobayo dardaarankii ardayda sharafta badan ee muddada aan soo wada joognay ee ka kooban qaybaha kala duwan hadday yihiin xisaabta hadday yihiin caafimaadka iyo hadday yihiin luqadda Ingiriiska saddexdaba waxaan idin leeyahay horta marka koowaad hambaliyo waqtigii dheeraa aad soo wadeen halgankii faraha badnaa maanta waxay idiin suurtooday inaad hadafkiina ka midho dhalisaan maantana aad u fadhiisataan halkan inaad qaataan shahaadadii markaa laydinku talagalay ee ah koorsooyinka aad dhammayseen aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay haddaan nahay bahdayda college-ka Global macallimiin iyo maamulba waxaan idin leenahay waxaa weeyaan ilaahay cilmiga ha idin barakeeyo ilaahay aqoontiina ha idin barakeeyo waxaan idinkula sii dardaarmayaa oo keliya aqoontu ma dhammaato laakiin aqoontu waa ay ziyaadaa waxaa la rabaa aqoonta inaad halkan ka qaateen inaad horta marka koowaad aad naftaada ku anfacdid oo bulshada kale aad ka duwanaatid kagana duwanaatid fariinta aasidada ah aqoonyahan oo aad ka soconaatid bulshada kale qodobka labaad oo ah inaad bulshadaada ku anfacdid oo bulshadaada aad ka dhex muuqatid oo bulshadaas sii gaarsiisad aqoonta halkan aad maanta kala tagtay runtii waxaan ku kalsoonahay runtii ardaydan aan soo saarnay inay yihiin jiil runtii wax ka bedeli kara gobolkeena iyo gobolada kaleba kaliya gobol kaliya ma ka bedeli kara adduunka oo dhan waxaan idinku kalsoonahay inaad wax badan aad bedeli doontaan inaad jahliga la dagaalami doontaan inaad heer fiican gaarsiin doontaan bulshadiina waxaan idin leenahay hore ha loo socdo aqoontana halka ayaan la dhigin qalinkana halka ayaan la dhigin aqoonta ha la sii wado ha la sii kordhiyo ugu dambayn waxaan rabaa inaan idin baro jiilkan quruxda badan ee aad maanta hor fadhidaan cidda soo saartay waxa weeyaan taana waa kolley waa khasab inaan maanta jaaniskan kaga faa'iidaysto si aan idiin baro waxaan rabaa mid inaan ugu yeedho magacyadooda waxaan rabaa iyaguna inay magaranaysaayey halkan ii soo istaagaan ayagoo mahadsan macallinkaasna wuxuu dhigayo
ee college-ka uu ka dhigan insha Allah waa idin soo gudbinaya sida uga barataan dadka kale aan ugu yeedho ustaadkayga horta ustaadada Mr. Ali King ha loo saafiyo maanta waa diimka luqadda Ingiriiska aad iyo aad waa u taqaan isagoo aan bal malinaya Soomaha waayahay diinka labaad ee caafimaadka Mr. Yusuf Ahmed Abdiqaadir Yusuf soo dhawow horta saddex departmenti waa kuwa dhiimankoodii inta kalena waa macallimiintii kale ayagana la shaqeyn jiray aan u yeedho macallimiinteeda kalena macallimiinta labada macallimiin kale caafimaadka ee nooga yimid Garowe ee marka horena kale warbixinteeda la soo gudbiyay Mr. Roble iyo Shariif oo maana Mr. Shariif ama Maxamed Ibrahim Ducaale iyo Roble soo dhawow waa macallimiin runtii aad dhalinyaro ah oo runtii markastaba waxa weeyaan la jecel inay dadkooda aqoonta ay bartaan u soo gudbiyaan insha Allah kullay ayagana waan siin doonaa kelmadooda laakiin waxaan kaliya hadda ujeedada waxa weeyaan inaan ka baro dadka kale Abdullahi Maxamuud Xasan baisna u yeerayaa oo ah macallin kamid ah macallimiinta college-ka oo ah macallimiinta dhalinyarada ah runtii halkan waxaad ku arki doontaan in dhalinyaradii gobolka aan runtii aanu ka faa'iideysanay wuxuu bixiyaasna maadada xisaabta waxaan u yeerayaa Sayyid Ali Maxamuud oo isna ah macallimiinta xisaabta isna waxaan leenahay soo dhawow waxaan kale u yeerayaa Axmed Abdi Faarax oo kamid ah